filimkan wuxuu ku biloobanayaa nin lagu magacaabo Monty wuxuu ciyaaraa Hackney Police koox ka tirsan horyaalka yar. Monty tiimkiisu maaha kuwa aad loo jecel yahay sababtoo ah si fiican uma ciyaaraan. Dhibaatada kale jirta waxay tahay in garoonku uu leeyahay waddo tareen, markastuu tareenku soo maro ciyaarta waa la joojiyaa. Intii uu tareenku marayay ayaa Monty saaxiibkiis Spike u sheegay inuu jiro mid ka mid ah daawadayaasha oo sawirka qaada magaciisuna waa Ronaldo, waxaanu saameyn u soo jeeday 3 cisho dambe. Markaa Monty wuxuu qabaa in dhawaan loo dalacsiiyo horyaalka weyn. Si kastaba ha ahaatee, Spike wuxuu qabaa inuu Monty rajaynayo wax badan. Monty tiimkiisa ayaa ciyaartii si mucjiso ah u badiyay, sidaas darteed kooxdu waxay aaday baadh si ay ugu soo damaashaadaan. Monty iyo Spike waxay heleen 2 dumar ah oo ciyaartooda ku raaxaysanayay, iyagoo damacsanaa gurigooda inay geeyaan. Dibadda waxaa taagnaa Ronaldo si uu ugu sheego dhaqdhaqaaqa kooxa ganaan magaceeda lagu xusin. Waxaa soo baxay inuu maalmo daba socday, isla markaas saaxiibadii dumarka ayaa yimid iyagoo aad uga xanaaqay markii ay ka heleen dumarkii Monty iyo Spike. Muran ayaa dhex maray, iyagoo dadkii meesha isugu yimid dareemayaan in wax walba ay sii xumaanayaan. Waxaa la wacay booliiskii si marxaladda meesha ka jirta ay u xaliyeen. Waxaa meesha ka biloomay dagaal, waxbaan la iskula hadlin. Kuraasta ayaa loo adeegsaday hubo ahaan. Subaxdii xigtay Monty iyo Spike ayaa arkayna oo xabsiga ku jira. Dagaalkii ay sameeyeen darteed, tababarada Charlie ayaa u imaanaya si uu ogeysiiyo in maamulka uusan bixin doonin damaanadooda. Labadan ciyaaryahan ayaa ka warwarsan inay seegaan kulanka ugu dambeeya ee xilli ciyaareedka, laakiin Charlie wuxuu sharxayaa inaysan dan ka lahayn iyaga, waxayna rabaan tiimka inay keenaan dhalinyaro si kooxda ay u cusboonaysiiyaan. Charlie wuxuu u sheegay Monty inuu ciyaarayay kooxda 15 sano, taasina ay ka badan tahay intuu qof ciyaaro. Dhowr saacadood kadib, labadooda ayaa maxkamadda la geenayaa si loogu soo xukumo weerarkii iyo hanti burburkii ka dhacay meeshaan. Wiilashu waxay ku dhaarteenba inaysan dembi lahayn, xitaa waxay la murmeen garsoorka isagoo xanaaqan uu damaanad uga dhigay $3,000, laakiin wax lacag ma haystaan oo ay ku bixiyaan damaanadda. Go'aankuna wuxuu yahay in dib lagu celiyo maxkamadda, balse hal mar maxkamadda waxaa ka soo muuqday Ronaldo. Waxa uu sharxayaa inay ka bixin doonaan damaanadda iyo ganaaxyada. Monty ayaa aad u farxay hadalka Ronaldo. Kadib Ronaldo waxa uu kaxeynayaa New York. Spike ayaa markaa ay galaash sikada u malayn doonaa inuu yahay sarkaal una khiyaamaynayo. Ronaldo wuxuu sheegay inaanu wax khiyaamo ah aanu ku sameynin. Monty waxay soo galeen xafiis aad u qurxoon. Monty waxaa loo qaaday si uu arko qareenada si gaar ah. Waxay matalayaan Monty adeerkiis, waxayna rabaan Monty adeerkiisa weyn ee Roberto, kaasoo muran weyn kala qabsaday qoyskooda sodomeeyadii. Waa la waayay dagaalkaas kadib, qofna dib dambe uma arkin. Waxaa soo baxday Robert inuu noqday mid ka mid ah ragga ugu qaniisan dalkan tan iyo markii uu dhintay bishii hore. Hadda dhaxalkiisa keliya waxaa u nool Monty. Si kastaba ha ahaatee, dardaaranka wuxuu leeyahay shuruudo gaar ah. Waxaa la tusay dardaarankii uu adeerkii uga tegay dhaxalka. Monty ayaa aad uga naxay markuu arkay adeerkii oo caddaana. Adeerkii wuxuu sharxay inuu aabihii qabay 2 xaas, mid cad iyo mid madow. Monty hadduu doonay inuu helo hantida, adeerkii wuxuu ku xidhay shuruudo. Waxaanu haystaa 30 maalmood oo ku kharash garaynayo $30 milyan. Markaas ay dhamaatana 30kaas weynaan wax hanti ah aanay ku soo harin. Marka laga reebo dharkiisa, lama baahna lacagta burburiya oo wuxuu ku iibsaday keliya 5% sadaq ahaan ayuu bixin karaa, halka keliya 5% uu ku ciyaari karo. Hadduusan lacagta maamuli karin, waa inuu 1 milyan qaata oo iskaga tagaa qareenada. Monty waxay ku tilmaameen inaanu garanayn sida lacagta loo maamulo, iyagoo kula talinaya inaanu mas'uuliyaddan qaadan oo dusha iska saarin. Monty wuxuu isweydiinayaa halkay ku dambayn doonto hantida adeerkii. Monty wuu ka labalabeynayaa, laakiin ugu dambayn uu qaadanayaa 30 maalmood oo damaanad ah. Waa inaanu wax shilin la soo noqon, waa inaanu soo noqdaana isagoo faqiir ah. Waxaa soo muuqanaysa gabadha shaqaalaha lagu magacaabo Angela ayaa la socon doontaa kharashkiisa si ay u hubiso inaanu wax khiyaamo ah aanu sameynin amba uu been sheegay. Saaxiibkii Spike ayuu sheegayaa inuu dhaxlay $30 milyan. Markiiba wuxuu shaqaalaysiinayaa sawir-qaada Ronaldo. Wuxuu aadayaa bangiga si uu u arko lacagtii inay tahay mid dhab ah. Isla markii wuxuu qaadanayaa $3 milyan. Maamulaha bangiga wuxuu sheegay inuu bixiyo adeegyo u oggolaanaya inuu kasbado dulsaar, laakiin Monty waxa uu weydiisanayaa xisaab. wax riba haba yaraataanay jirin. Taas waxaa ka cadhaysiisay Angela oon garanayn runta. Kadib Monty wuxuu waardiyaha weydiinayaa inta uu qaato, waxaana uu soo bandhigayaa mushahar aad u badan si uu u noqdo ilaalidiisa gaarka ah. Wuxuu shaqaalaysiinayaa kooxda amniga oo dhan si ay ula socdaan isaga maadaama uu qaadan doono lacag badan. Spike waa ka xanaaqaya saaxiibkii maadaama waxaa soo dhan si taxadar la'aan oo kharash garaynayo, laakiin Monty waxa uu xaqiijinayaa inuu leeyahay qorshe. Marka xigta Monty waxa uu wacayaa Charlie, waxaanu sheegay in koox ka kale isagoo ballan qaadaya ay helayaan labis cusub, bas cusub, mushahar wanaagsan. Charlie uu rumaysan waaya. Kadib Monty waxa uu istaajinaya taxi. Waxa uu sheegay inuu ka kireeyo taxiga waliba uu noqdo darawalkiisa gaarka ah ee bisha soo bandhigay lacag. Angela ayaa u sheegtay inuu kiraysan karo
gaari raaxa ah. Monty darawalkii ayuu sheegay inuu taas sameeyo gaari VIP inuu soo qaado. dad badan ayaa durba ku soo ururay Monty iyo asxaabtiisa. Monty ayaa dadka ku soo ururay waxa ugu yeedhay dhammaantood qado waxayna aadayaan makhaayad aad u qurux badan. waxay sidoo kale cabayaan khamriga ugu qaalisan. Monty wuxuu shogaansi ku wadaa Angela balse wuxuu ogaana in la qabo ninka guursada waa qareen ku lug lahaa howlo samafal badan iyo howlo bulsho. sidaas darteed waqti badan uma hayo Angela. Monty ayaa Angela weydiistay inuu la kulmo si waqtigiisa uga lumiyo. Angela waxay sheegtay inaan wax walba iibsan karin. war si degdeg ah u faafaya sheegaya inuu milyaneer magaalada dhex wareegay. Monty wariyaasha ay sugayeen ayaa u sheegay inuu rabo inuu shaqaaleysiiyo dad badan waxaanuu ku dhawaaqay Spike inuu yahay madaxweyne ku-xigeenka shirkadaasi cusub. waxaan arkaynaa maareeyaha hotelka Monty ku leh labada dabaqe u sare inay buuxaan balse markii Monty ayaa sheegay intuu ka karaysay tonjberki inuu siinayo. Monty iyo Spike way wareegeen meeshii. Monty saaxiibka ayaa karaysay suulo aad u wanaagsan. fiidkii ninkan Angela qabay ayaa u yimid inuu soo qaado. markii Monty wuxuu fursad u adeegsaday inuu lacag ugu deeqo mid ka mid ah hay'adaha samafalka. weerin aad ayuu la dhacay farshaxanka iyo alaabta guriga taala isagoo muujinaya aqoon ballaaran. Monty aad buu la dhacay waxaanu doonay inuu shaqaysto weerin si uu u noqdo qurxiisa isagoo bixinaya mushaar aad u wanaagsan. weerin ayaa markiiba aqbalay oo niyad jabiyay Angela taasoo rumaysnayd in ninkeeda si fudud loo yuusin karin. subaxdii xigta wuxuu weerin madaxdiisa ka codsaday inay u qabtaan hal bil oo kaliya. qaynada ayaa ku heshiiyey weerin noqdo basaaskooda si ay ula socdaan Monty. ma ogola inuu tan la wadaago Angela. dhanka kale Monty waxuu xafiiskiisa ka buuxiyey boqolaal qof uu shaqaaleysiiyey inay u qabtaan howlaha oo ku jira weerin. wuxuu yeedhay xaaskiisii hore Marlene maadaama ay tahay qoryaha xirfad leh. tani waxay ka cadhaysiisay Angela. Monty ayaa dhahay waxa isku dayda inaad dareenkaaga soo jeediso iyadoo ku dhufanaysa meel xun. markii weeran isku dayan uu digayada uu siiganaya oo wuxuu ku dhacaya baldiyada rinjiyada. nin ayaa u imaanaya Monty isagoo weydiisanaya $3 milyan si ay taraafka waqooyi ilaa Afrika biyo macaan u helaan. Monty wuxuu oggolaanaya taas sidoo kale isagoo iska indhatiraya Spike hadalkiisa. wuxuu shaqaaleysiinaya sidoo kale nin si loo isticmaalo $5 loogu talagalay ciyaaraha iyo khamaarka markaas jira. Monty waxa uu wacay Charlie. Monty wuxuu sheegay inuu bixinayo kharash kooxiisa si ay ula ciyaaraan Yankees. xitaa wuxuu u soo diray diyaarad si ay u qaadaan asxaabtiisa. banaanka garoonka ayuu saaxiibadiisa ku sugayay. Monty wuxuu sameynayaa xaflad soo dhaweyn ah oonu ku faraxsan yahay iyagoo xidhan dareyska cusub. qareenada ayaa waxaasoo dhan daawanayay iyagoo la yaabay inay dhayalsadeen isagaan. intaas kadib Monty wuxuu gashanaya labiska sidoo kale wuu la tababaranaya intuu warku ku dhawaaqayo ciyaarta weyn ee soo socota. kadib Monty wuxuu daawaday warka waxaanu ogaanay kaydkiisii shirkadda barafka ay isticmaaleen isagoo ka welwelsan lacagta cusub. Monty shaqaalihiisa wuxuu sheegay inay iibiyaan dhammaanba. waxaa taas ka sii daran inuu dhammaan ku guuleystay shardiyadii uu argagaxaya. waxaanu sheegay Angela inay dhammaan ugu deeqdo samafalka. waxayna doonayaan qareenada iyo maamulayaashu inuu fashilmo si ay iyagu lacagta u hantaan. waxay isku dayayaan inay khalkhalgeliyaan qorshihiisa laakiin Monty mar walba wuxuu ka baxsadaa dabinada ay dhigaan. Monty iyo Angela iyagoo qado socda asma flaan baabuurkooda gadaal uga dhuftay wax badan soo gaadhi. Monty wuxuu rabaa inuu ninka dhakhtarka ugu kaxeeyo si uu u bixiyo adeeg caafimaad. markuu ninkii gatay inuu hantida yahay Monty waxa uu sheegay inuu si xun ugu dhaawacmay. Monty xitaa wuxuu siiyey lacag si uu masaaruufka uga bixiyo labadiisa xaas ee hore. Angela way xanaaqday waxay bilowday inay ku qayliso Monty. dadka ku xiran wuxuu malaynaya inuu waanayay amba lacag ku liminayo waxyaabo aan macno lahayn. saaxiibadiisa marka qaar waxay isku dayaan inay ka caawiyaan laakiin caawintooda ayaa ka dhigaysa in lacagtiisii sii kordho halkay ka yaraan lahayn. weerin ayaa ka daawanaya daaqadda. Marilyn wuxuu sheegtay inaysan Angela xaas fiican hayn inay aad ugu dhawaatay Monty. Spike ayaa taliyaha dhaqaalaha u sheegaya in maalgashi gadaashay sameeyeen oo ay faa'iideen $10 milyan. Monty aad ayuu niyad jabaya way la yaabeen waxa ka qaldan. Monty wuxuu sheegay inuu kaliya doonayo inuu waqti qaato. Monty markii uu daaray TV-ga wuxuu ogaaday in doorashada soo socota ee loo tartamayo duqa magaalada in lacaga aad u badan ku bixinayaan ololahooda. Monty wuxuu go'aansaday inuu noqdo musharax si uu lacagtiisa dhan ugu bixiyo ololaha. Angela waxay la tahay in dareemayo dembi aad u weyn inuu lacagtan badan uu haysto uu isticmaalo caawinta bulshada. Monty ayaa u sheegay wariyaasha inaan dadka u codayn mid ka mid ah musharaxiinta xitaa isaga. sidoo kale waxa uu ka soo muuqanayaa TV-ga isagoo leh dhammaan musharaxiintu waa dad xun. wuxuu xaysiiskiisa ku baahiyey dhammaan gobolada oo dhan. labada musharax kale ayaa si qarsoodi ah u kulmaya waxaana ku heshiinaya inay wax ka qabtaan Monty oo aflagaadidiisa sii wata. Monty ayaa lagu daawanayay shuruuda meel uga dhacay iyadoo lagu ganaaxayo $4 bilyan isagoo ku faraxsan Monty si degdegna ugu bixiyey. ugu dambeyn waxaa soo gaadhay maanta ciyaarta weyn. Monty ayaa u sheegay kooxiisa inay ka adkaan karaan Yankees. tareenka ayaa soo dhex maraya garoonka isagoo lagu xaysiinayo oolaha Monty waa laga badinayaa. Monty tiimkiisa ayaa khudbada ay ugu hambalyaynayaan jeedinaya waxaanu sheegay inuu qof kasta oo lacag haysta iibsan karo doorasho laakiin noqoshada ciyaaryahan xirfad leh waxay u baahantay dadaal. Monty ayaa sidoo kale ka tanaasulaya doorashada isagoo filaya inuu ku guuleysan doonin doorashada. lacag badan uma ahna
dhammaan wuxuu isticmaali doonaa lacagta soo hadhay inuu xaflad u sameeyo, qof kastana waa la casuumiye. Habeenka Angela waxay soo xidhaysay xisaabaadka iyagoo wax kasta dhammaadeen. Angela waxay ka xanaaqsantay siduu Monty lacagaha badan u kharash gareeyay si malaayacniya. Angela way soo baxaysaa weliba soo ku leh waan ku jeclahay. Subaxii isagoo hurday Monty ayaa waxaa maamulaha hotelka u sheegaya inay wax walba dhammaadeen, waxaana laga qaadanaya dhammaan waxyaabihii uu kaleystay bisha, waxaana ku jiray dharkiisii. Kadib wuxuu gashaday labiskiisii hore, intaanu bixin ayuu waardiyuhu u sheegay inaanu cidna u codayn. Habeenkaas magaaladu way naxday markay ogaatay inaanay cidna ku guulaysan doorashadii, sababtoo qof kasta wuxuu qaatay taladii Monty. Wuxuu aadaya xafiiska qareenka, waxaanu imaanaya weer isagoo soo celiyay lacag ku qaatay dibaajiga. Monty ku niyad jabaya. Monty wuxuu sheegay qareenada inuu quustay oo diyaar u yahay inuu saxiixo warqadaha. Angela ayaa ogaanaysa in la khiyaanay. Monty waxay u soo cararaysaa xafiiska. Weerin waxa uu sheegay inuu ka dacweyn doono weerar. Markaa Monty wuxuu weydiistay Angela inay qareen u noqoto oo u dhaqaalaysiiyo iyadoo uu siinay lacagtii dibaajiga ahayd. Angela waxay si dhaqso ah u samaynaysaa rasiidhka adeegaheeda. Fuliyaha dardaaranka ayaa ku dhawaaqaya inuu ku guulaystay loolanka Monty, isagoo weliba ballan qaaday inuu dabageli doono khiyaanada qareenada. Isagii Angela way bixeen si ay nolol cusub u samaystaan. Filimkana xaggaasu ku soo dhammaaday. Hadda barteena ku cusubtahay subscribe, like, midnaba hanala dhaafin. Assalaamu calaykum.